marka saaxiibkay qadarkayo haday daawanaysid niyaha waa ku maseysana wallahi I'm jealous man dadkaas anigii hor taagan saaxiibkay Dayaxdal Nuurshe liil baliil iyo ninka la yiraahdo arrimaheena السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. welcome back to my YouTube channel again ولكن صاحبكم شعيب باك soo dhawaad saaxiibayaal meel baa joogtaan muuqaalkan waxaan rabaa inaan kaga hadlo saddexda nooc ee u kala baxo jirka bini'aadanka ah haddii aadan garanayn saddex nooc ayuu u kala baxaa jirka bini'aadanka ah waxayna muhiim u tahay saddexdan haddii aad baratid sida uu noqon doono jirkaaga ama shape-kiisa noqon doono adiga ayaa go'aan si fudud uga gaari karo saddexdan haddaa ogaatid waxaad ogaatay sirta ugu muhiimsan ee jirkaaga adiga haddii aad doonaysid inaad six pack yeelatidna way ku fududaan doontaa haddii aad doonaysid inaad miisaan iska dhigtidna sidoo kale way ku fududaan doontaa haddaad muruq doonaysidna sidoo kale way ku fududaan doontaa jirka bini'aadanka waxaa loo kala qaadaa saddex nooc nooca koowaad lagu magacaabo ectomorph iyo nooca labaad oo la yiraahdo mesomorph iyo kan saddexaad oo la yiraahdo endomorph saddexdaas nooc ayuu u kala baxaa jirka bini'aadanka saddexdan waxay kala sameeyaysan yihiin sida aad ka aragtaan shaashada saddexdaas nooc ayuu kala sameeysan yihiin nooca koobaad hadda u guda galno oo ah ectomorph waxa waaye dadka iskiiniga ah yani xoolo jeeda dadka caatada ah oo ay ku adag tahay inay miisaan isku daraan una fududahay in ay miisaan iska dhimaan dadkaas waa dadka lagu magacaabo ectomorph tusaale haddii aan idin tusiyo waxaa ka mid ah dadkaas anigii hor taagan saaxiibkay Dayaxdal Nuurshe liil baliil iyo ninka la yiraahdo arrimaheena intaas haddii aad fiirisaan dhammaantood qaabkooda ay u sameeysan yihiin ama dadka noocaas jirkoodu sameeysan yahay waxaa lagu magacaabaa ectomorph dadkaas waa dad ay ku adag tahay in ay sameeyaan miisaan isku daraan sidoo kale fast metabolism sidoo kale ay u fududahay in miisaan iska dhimaan muruq hadday isku diri tagaana way ku adag tahay laakiin waqti dheer ay ku qaadanaysaa laakiin dhanka faa'iidada haddaan u gudubno waxa ay isku diri karaan muruq nadiif ah dadkaas cunto walba ay cunaan way ku adag tahay si uu jirkooda u sameeyo fat soo ma arkin qof la leeyahay warniyaha cunto badan waa cuntaa cidiina cuntadii ka dhamaysay cuntada aad cuntaa xagee ka martaa caata tahay hay ka baxdaa cuntada cuntaa maxaa ku dhacay dadkaas waa dadka loo yaqaano ectomorph ilaahay ayaa sidaa u sameeyay fast metabolism haystaan ama waxa lagu magacaabo high for burning jirkooda waaye cunto walba oo kaloriga jirkooda ayaa si automatic u gubay inta badan soo dadkaas waxay u baahan yihiin in ay cunaan cunto badan marka group walba cuntadiisa iyo trainingkiisa iyo qaabka uu sameeynayo muuqaal kale ayaan u day doonaa haddii aan u gudbo groupka labaad oo lagu magacaabo mesomorph waa dadka ugu nasiibka badan uguna wanaagsan markay timaado xagga bodybuilderka dadkaas waa dad mar walba shape-kooda muuqdo waa dad xoog leh athletic dadka lagu magacaabo weeyaan dadkaas haddii aan tusaale ahaan soo fiiriyo waxaa ka mid ah ninka la yiraahdo qadarkayo sababtoo ah waa la socdaa bilna waa nooc bil kalena waa nooc يعني بلو عاطية هاي بلنا وذا ماسلس واي بش حتى واحد لاقيها بحوجات فادي إنه سماه مركز دتكاس متابلسين كده يجوا حوش قيا ويقف ضد هاي إني ميسان اسكت دران وينقف ضد هاي إني ميسان اسكدمان سيدو كلاته ويقف ضد هاي إني مرق سميان وينقف ضد هاي إني كاتن سميان يجير كده وحيان شيء قرح بدن دتكاسنا ودتك أول نصيب كبدن مركز اعتماده حاجة إن جرديسكا marka saaxiibkay qadarkayo haday daawanaysid niyaha waa ku maseysana wallahi I'm jealous man ina ectomorph iska ahaado adiga laakiin meesha aniga uga baahanahay inaan training gareeyo 5 bilood 6 bilood 7 bilood aan training gareeyo 2 months adiga waxa way hawshaada waa dhamaysataba almost waa diyaarsan tahay marka dadkaas waa dad nasiib badan dadkaas waxa kamid ah hadii aan tusaale soo qaato ninka lagu magacaabo Hanad Umar ma training gareeyo laakiin always in shape يعني waxaan ka wadaa soo wiligiis training aadin ee wada sheekaysanaa saaxiibkay jirkiisa waa jir wanaagsan yani marna plus uu tii karaa marna ma soo iman karaa marka dadkaas waa dad ayaga waxa waaye nasiib badan oo waxa lagu magacaabaa mesomorph adigana daawanay marka groupka ayaad ku jirtaa comment-iga soo qor groupka xigo waxa waaye groupka lagu magacaabo endomorph dadkan waxaan dhihi karaa waa dadka ugu nasiibka xun markay timaado xagga shape-ka dadkaas badan shape-koodu wuxuu sameeysan yahay square waaye soft waxay haystaan jiray haystaan mise jir jilicsan ay leeyihiin waa dadka ugu badan ee baruurta saaran tahay ama dadka
faatka ugu badan sameeyo dadkaas waxaa lagu magacaabaa endomorph ayaga waa ay u fududahay inay miisaan isku daraan waxaa laga yaabaa wax yar haddii uu cuno in uu dhaqso miisaan ku koro sidoo kaleeto waa ay ku adag tahay weliba very hard waa inay iska dhimaan miisaanka dadkaasne sidoo kaleeto waa dad maxaa la dhihi jiray slow metabolism ama dheefshiidkooda uu si yacna degan ama si hooseeyo uu shaqeeyo markay timaado inuu cuntada gubo yacna ma haystaan high for burning ma haystaan ama jirkoodu ma lahan in uu gubo kaloriga uu maalintii qaadanayo ama jirkoodu ma gubo cuntada maalintii soo gelayso maxaa yeelay slow metabolism ayay leeyihiin dadkaas waa dadka lagu magacaabo endomorph yani dadkan balbalaarka ah waaweynka dadkaas weeyaan waxaana ka soo baxo maxaa la dhihi jiray dhanka balasaytka haddana aadno dadka dhanka faa'iidada ay leeyihiin waxaa waaye dad xoogana ka soo baxo sida dadka power liftiga arkaysiin inta ugu badan waxaa waaye endomorph sidoo kaleeto ciyaaryahana ka mid ah sida haddii aad fiirisaan Messi oo kaleeto shapekiisa waxaa waaye endomorph weeyaan haddii uu exercise ku jiray haddii wax yar ama exercise ka yareeyo ama kubadda dee cardio badan ama marba la gubaa dadkan waaweynka ayuu noqonayaa marka ayaga waxay ku fiican yihiin dad awood leh yacna culays qaadi kara ka soo baxo qof walba miisaankiisa markuu weyn yahay culays uu qaadi karaa dadkaas yacna badanaa waa dadka aan dhumi karin miisaanka maxaa la dhihi jiray lagu magacaabo endomorph iyagana sida ay cuntadoodu ta noqonayso iyo sida ay miisaanka isaga dhimi doonaan iyo faa'iidadooda waxaan kaga hadli doonaa ama uday doonaa muuqaal kale insha Allah group walba oo idin soo sheegayna waxay leeyihiin exercise u gooni ah cunto u gooni ah iyo maxaa la dhihi jiray qaabishin u gooni ah ay jirkooda wax kaga bedeli karaa marka adigana daawanaya jirkaaga qiimeey sawirkana qiimeyn ka qaado gabdha iyo wiilalba commentiga waxa ku soo qortaan adiga noocee waaye jirkaaga ma waxa tahay qaybta koobaad ee ectomorph team caato mise waxa tahay mesomorph oo dadka shape-koodu wanaagsan yahay mar walba haddii training garayaan iyo haddii aysan training garaynba base waxaa ka mid tahay endomorph dadka waaweynka ahee fat teamaad ka mid tahay xagga hoose kusoo qoraan ogaado adiga sida uu yahay haddii aad xiisaynaysiin in aan nooc walba iyo cuntaday cuni lahaayeen iyo exercise ka samayn lahaayeen aan ka hadlana ama muuqaalada ka xiga aan ka dhigana commentiga igula wadaag insha Allah muuqaalkan sababta idinku soo gudbinaa waxay tahay inaad adigu aad baratid jirkaaga qaabka uu sameeysan yahay kadibna ay ku fududaato sidii aad ula tacaali lahayd marka haddii aadan aqoon u lahayna way kugu adag tahay inaad goolka adiga la aad gaartid sababtoo ah commentiga ugu badan waxaa arkaa dad isoo qorayo niyaha caloosheedun baa weyn garbeyga waa caato niyaha waxaa la rabaa inaan iska dhiso lugaha kaliya waxaan rabaa inaan iska dhiso xabadka kaliya muhiimadu taas ma ahan muhiimadu waa inaad garatid jirkaaga qaabku sameeysan yahay isla markaas anigana waa fududaa kartaa inaan ku caawiyo ama marka muuqaaladii kugu haboona aan u sameeyo sababta aan u doonayo inaad jirkaaga barataan waxa waaye inaad adigu ka faa'iideysatid biritoolna ay ku fududaato sidii aad ula tacaamul lahayd jirkaaga waayo haddaad garanaysid waa ay ku fududahay inaad la tacaamushid maxaa yeelay macallinkuba xisaabta markuu dhigayo tusaale ayuu kugu qoraa sabuuradda si aad u fahantid kadibna aad uga shaqaysid laakiin haddii xisaab leh lagu keeno aad hore tusaalaheeda u qaadan waa ay kugu adag tahay si aad ula tacaamushid ama si aad u xallisid sababta aan jirka kugu sheegay qaybihiisa kala duwanna waxaa waaye inaad baratid adiga jirkaaga oo aad biritoole la tacaamushid ama aad la tacaashid sidii uu u noqon lahaa biritoole shay qurux badan marka waxaan leeyahay tan iyo muuqaalka inta kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.